نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية قفك مؤمن كاوحي دال يدب يحنون يهم ورور يمرغو هليلة أما أذى أما غمي دب أوردن مد سايكولوجيكالا يمد فيسيولوجيكالا يعني قفك وحي هليلة يجدهانو هليلة حنون نضا يمشاكل كدعة أما وحي مسكحانو هليلة ورورية ولاعية والبهارية تيرانية ورقوية ورحمة كدعة مدى يدون طبعا النقطة قضحي حتى ما مدبو نبي عليه الصلاة والسلام إلا يدن بقى إلهي بركة كما يدها قفك مؤمن كير رميسن مشكلة قبصتين دنبي لغا ميديي ديكو ما كانت ورور كاسين وبقوضا حنوصدا بوفسو كدعة ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية انت وحاوسي دير هدو كنا صبرنا هدو كو صبرنا إنما يوفى الصابرون أجرهم تدك الصبر أجر كودا وحن باو وفني الرب قود إساقوا أهبا ليدي بغير حساب مدل كوبي كرو إساقوا أنا هاي وكي النبي عليه الصلاة والسلام هوين يمدو وصوح يساو التمي عذر كان صوح دماء الله يدعى قبطه وحيتي إلهي رسولك سيوان صوحاه إلهي يبري إنه حنون كان يقاضه نبي حكوي عليه الصلاة والسلام هذا ضربتنا ربان كوبري هذا ضربتنا وابد الصبر يو جنة ديالا وحيتي لو حنون كذا الصبر الجنة مهلية هبا ليلي تذكر صبرت الجنة ليس بس إلهي رسولك سيوا صبر يا بيتي حنون كيغان سكا قبايا لكن مرك لا إلهي يقبري marka aan suuxo ay cawradaydu muuqataa inaan ilaahay cawradayda kashifin oo aanay muuqanin inta uu ilaahay weydii nabiga kaleey salaatu wasalaam intii uu ilaahay u bariyay saxaabadu waagi dambe waxa jiray qofka raba qof ahlu janna inuu arko Abu Ibn Abbas oran jiray islaanta madooba halka fadhida arag islaantani waxay janno ku mutaysatay waxay aqbashay imtixaankii alla imtixaamay inay ku sabirto iyadoo aakhira ajir ku raadinayso امتحانك إلهي امتحامي نجا واحد لقى بدمانتين حنون يرهدون يقولوا على عالك يورور كينو ينقى تربطه استرس يغلق كينو ينقول رده لكن النبي عليه الصلاة والسلام حليه هذا تكسبرتين أجر بعد لاغه وحي نشيق نودمي وحي تلمام كي مسألة النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن قفك مؤمن كأرن كي سابا ياب لبو النبي ويا أرنت قفك مؤمن كordami waa wada khayr cid kale oo arrinkaasi u sugan yahayna ma jiro waayo hadduu badhaadhe iyo barwaaqiyo nabad helana waa mahadnaqa haddii dhib iyo mushkiladii soo gaadhana waa sabraa arrinkiisuba markaa waa wada khayr buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yacni adduunka intaad joogto waa mumtaxin baatay waxa lagugu itixaamo adigu dooran maysida ilaahay baa doora ilaahay baa ku dooraya imtixaanku noocuye adiga waxa ku saaran imtixaan kasto yimaada noocu doonaba ha noqday jawaabtii sax ahayd inaad bixiso adigu arday waraaq loo dhiibaato imtixaan la rabo inuu qoro imtixaanku noocu noqonayo de macalinka soo doorto soo qora adiga inaad ka jawaabtaa laga rabaa adduunkan adiga waxa lagu keenay in lagu itixaamo ibtilaa أما امتحان كاغو نوع نقونيو إلهي با دورة سيدو أنبياء با ugu dooray أنبياء القرآن كو وحي نوغا ورمايا نبي بقرة oo madaxa oo hantiyo xoolo la siiyay oo dawladana haysta oo nabiyana ay rasuul nabi Suleymaan iyo Daawud iyo saxanka maaha waxa la inooga warramaya nabiy Allah adoonsaday oo adooma noqdayba nabi Yuusuf ayaa quraanka ka warramaya waxa quraanka ka warramaya nabiy la beeniyay oo la eriyaday oo caymado firraday sidii nabi Muuse iyo ciidii la midka ahay waxa quraanku ka warramaya nabiy dagaal laga furaystay oo wax kasta isiri sheega oo 950 sanadood diin sheegayay oo wax soo raaca waayay ilaa qaliilan mooyana sa quraanku warramayo waxa quraanku ka warramaya nabiy xanuun lagu itixaamay nabi ayuub quraanku ka warramaya oo nabigu kaleey salaatu wasalaam leey 18 sanadood buu jiifay ilaa dadbayskaga wada tagay idan imtixaanka adigu dooran maysid imtixaanka ilaahay baa dooraya
adiga beej baa kuu soo baxaya ma xoolo noqoy ma maamul noqoy ma bukaan noqoy ma wuxuu doonu noqonaya adiga beejka kuu soo baxa la rabaa jawaab sax ah inaad ka bixiso hadduu barwaaqiyo badhaadha noqdana inaad mahadnaq iyo shukri kala timaadid oo cibaadada la timaadid nabi sulaymaan waa la itixaamo xoola lagu itixaama ilaa iyo mararka qaarkood wuu arkay imtixaanada qaarkood inay garab mareen oo intuu wixiiba laayay uu yidhi ilaahu imtixaanka ii kordhi oo loo kordhiyay imtixaankii oo rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya ku ducaysanaya ilaahu waxaad nimco ii dhibtay inaan ka mahad celiyo ayaan ku weydiisanaya waxaan leenahay markaa qofka mu'minka arrinkiisoo dhammi waa khayr walidaalika waxaan leenahay warwarkiiyo walbahaarkiiyo walaaca waxaa abuura iimaan darrada qofka aakhira rumaysani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay akhiru dikra haadimi ladaat war waxaa badisaan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ka nolosha macmacaankeeda gooya geerida badiya geeri lama xasuusta buu nebigu yidhi iyadoo nolol cidhiidhiya lagu jiro ilaa way ballaadhataa nolol ballaadhan iyadoo lagu jirana lama xasuusto ilaa way cidhiidhiyoontaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mar haddaad geeri xasuusan tahay dhadhan badan ma leh biisada iyo macmacaanka iyo intaa isla dhacaysaan geeraa ka dambaysa haddaad gaajo iyo rabshad iyo mashkalad ku soo martayna wax weyn ma aha sawaaba la iska qabanayaaye imka way kugu jirtaayo way gaajoonaysaa une waxa ka dambeeya sakaraatulmowt iyo dhib kale idan waa haadimu ladaat warwarka iyo walbahaarka wuu yareeyaa qisas badan bay culammadu meeshan ka warramaan laakiin aan hal qiso idin tilmaamo gabadhii saxaabiyadda ahayd ee alkhansaa la odhan jiray waa gabadh jaahiliyadii hore soo noolayd waxaa la yidhi gabay badan may aqoonee 2-3 bayd bay tuuri jirtay waagii hore dabeetana walaalkeed baa la dilay walaalkeed markii la dilay ayuunbaa gabay laga soo daayay gabayga dee dadku waxay idhahdaan marar badan ciilka iyo murugada iyo tiiraanyada keenta gabay baa khansa laga soo daayay waxay ka mid tahay carab marka gabayada qaybta arrathaa la yidhaahdo baroordiiqa gabayada la yidhaahdo af soomaaliga kuma badna soomaalidu gabayada baroordiiqa la yidhaahdo kuma badna haddaad raadiso wax yar baad soo helaysa laakiin carabta dhaqankoodii aad buu ugu badnaa islaantan khansaa la yidhaahdaa waxay ka mid ahayd gabayada baroordiiqee carabiba taqaano kuwa ugu badan gabadhii tirisay walaalkeed baa la dilay ilaa xad bay gabayadeedu gaadhsiisnaayeen ay tidhaahdo yudakirnii طuluucu shamsi sakhran wa abkiihi likulli guruubin cadceed kastoo soo baxdaa bay tidhi waxay xasuusisaa walaalkay sakhar ahaa cadceed kastoo dhacdaana way iga oohaysaa weli waa baryay iyo gabbal dumayba sakhar baan ku xasuustaa bay tilmaamaysaa walowlaa kahratu lbaakiina xawlii calaa ikhwaanihim laqataltu nafsi bay lahayd haddii lala yahay dad badan oo walaaladoo dhinteen oo agtayda ka ooyaya haddaanan kuwa ku sabrayn oo arkayn bay leedahay beri horaaba nafta iska goyn laha ee markaan arkay qaar kaloo walaaladooda la dilo oo oohinun ku gaabsaday ayaan anna isidhi bay leedahay oohin ku gaabso islaantii sidaa ahaydee walaalkeed sakhar waxa gabay la yaqaana af carabiga culuum albalaaqa lagu daraaseeyo adabka iyo balaaqada gabayada rataaga ugu tirada badan le islaanta leh ayaa islaamtay markay islaamtay bay iyada iyo inimadeedii waxay yimaadeen dagaaladii waaweynaa ee islaamiga xarbi alqaadasiya dagaalkii qaadasiya la odhan jiray ee beershiya dagaalkii ugu weynaa ee iiraaniyiinta lagu jebiyey furuska waa dagaal uu hogaaminayo sacd ibn abi waqaas axad alcashara almubashiriin saxaabo badanina ay la socoto 30 kun oo ciidan muslimiin oo saxaabo badan baa jooga 100 kun oo gaaleedna xagga kale joogaan dagaal adag oo dhex maray waa dagaalkii ugu weynaa ee beershiya lagu burburiyo ayaa muslimiinta dhex maray iyo nimanka gaaleed khansa 4 wiil oo ay dhashay baa marka kan muslimiin oo dagaalka ku jira hal subax baa 4tiiba la dilay 4tii wiilba waa la dilay
dabeetana khansaa baa loo yimo waxa la yidhi